taliyaha ciidamada laanta socdaalka Somaliland sareeye guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax maayirka degmada Balligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine saraakiilka kala socday hay-adaha UNHCR iyo NRC ayaa maanta magaalada Balligubadle xarunta gobolka Hawd si wada jir uga dhagax dhigay dhismo cusub oo loo binayn doono ciidanka laanta socdaalka Somaliland ee gobolka Hawd waxaana hirgelinta dhismahaasi iska kaashaday hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Somaliland iyo hay-adaha UNHCR iyo NRC waxaana dhisaysa shirkadda Barsan Construction Company marka hore gudoomiye iyo taliye waxaan soo dhaweynaynaa deegaankiini dalkiini iyo degmadiini ay ka soo aasaasantay Jamhuuriyadda Somaliland waa magaaladii halganka waxaan oran karnaa waa hooyadii Somaliland waxaan kan uga mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay madaxweyne waxa mujaahid baa tahay mujaahidkii Jamhuuriyadda Somaliland halkii laga xoreeyay waad garanaysaa waxaan leeyahay madaxweyne intan iyo in ka badan baan kaaga fadhinaa waanu ka sugaynaa madaxweyne noo soo dhaqso insha Allah bidmilaahi kariin labadaas sano ee lagu kordhiyay waanu kugu mahadnaqaynaa waxa maanta aan joognaa dhagax dhigiisii iyo bilowgiisiiba ilaanti socdaalka ayaan joognaa waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dadaalka weyn ee gudoomiyaha hay'adda qaxootiyaasha iyo barakacayaashu uu ka geystay arrinkan waxaan kaloo u mahad celinaynaa jananka General Xiirane insha Allah waxaan rajaynaynaa jananka waxaan ka rajaynaynaa haddii la yiraahdo kolley deegaankan iyo degmadana wax looga baahnaa waa xuduud inta u saaran tahay waad arkaysaa wuxuu wax weyn ka qaadan doonaa isku socodka dadweynaha haddii la yiraahdo dadweynuhuna waxaan ka rajaynaynaa General Xiirane waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay waxay dhamaystirkii waxay u baahnaa haday shaqaale noqoto iyo haday askar noqoto iyo haday hawl noqotaba dadka deegaanka insha Allah inay inta munaafacadaan taaban ka rajaynaynaa haddii la yiraahdo adigana kontraktorkana insha Allah waxaan u rajaynaynaa inuu si wanaagsan u dhisi doono haddii la yiraahdo annaguna waan la joogi doonaa wixii hawle uu la kulmana waan la hadli doonaa waan la joognaa had iyo jeer insha Allah waxaan rajaynaynaa meel dhameystiran oo dadka iyo dalkaba anfacda inay noqoto haddii la yiraahdo oo ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland loo dhisayo oo kharashka ay bixinayso hay'adda UNHCR heshiiskana UNHCR iyo hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranku ay sanadkan bilowgiisii wada galeen maadaama ciidanka socdaalka aanu leenahay wada shaqayn dhow oo shaqadeedu meelo badan iska soo gasho iyo waxaanu kula heshiinay in 8 xafiis loo dhigo meelaha xuduudaha looga dhiso ay ka mid tahay Xariirad Goreyacawl Wajaale Duruqsi Balidhiig Caynaba iyo Lascaanood 8 xafiis baa la dhisayaa xafiiskana waa kii labaad ee sanadkan la dhisayo inta sanadkan ka hadhayna 3 xafiis baa la dhisayaa ka saddexaadna berri baan Goreyacawl ka dhagax dhigi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo midna waa Wajaale uu socdaa oo hadda gabagaba ku dhow yahay kastoo qayb dambe lagu darayo isla sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo la kordhinayo wixii soo hadhay sanadaha soo socda baa la dhisi doonaa waxaan isleenahay sanadkan soo socda bilowgiisana labada ku xiga ha noqdaan Duruqsi iyo Balidhiig maadaama labadani ay saddexdan ay gobolada xagga galbeedka laga dhisay bal xagga barigana kuwa ku xiga si haddii Ilaahay ka dhigo marka insha Allah saas ay noogu socon doonaan sidaasanan Ilaahay ka baryaynaa inuu si wanaagsan inoogu gabagabeeyo waxaan maanta oo taariikhdu tahay 15 bishii Oktoobar waxaan halkan dhagax dhigaynaa dhismo uu yeelan doono ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha oo baahi weyn loo qabay maadaama goobtan ay tahay xuduud waxaan u dhameystir doonaa insha Allah marka la dhameeyo waxyaabaha ka dhiman oo dhan ee qalabka oo dhan waxaan aad kale ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha oo ah Djibouti ka qayb qaatay in ciidanka loo dhiso oo hay'adda xoogga saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa insha Allah waxa weeye maanta waa la bilaabi doonaa waa la boobsin doonaa markaas aan soo keen doonaa wax alla waxay naga dhinaa waxay noqon doontaa taariikh lama ilaawana oo shaqeyn fiican baan naga dhaxaysaa gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiyaha halka ka sii wad dalka loo kaco laga ilaaliyo qaxootiga kontrabanka ciidamada qulma ilaalin karaan waxay ilaalin karaan shacabka ilaalin karaan ha loo soo jeesto kidii dadku waa in sida socdaalka u shaqeeyaan sida bileeska u shaqeeyaan dalku way naga dhaxayaan leeyahay
marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka ajaanibka ee jooga joogitaanka la qaato qofkii aan qaadan inta badan way qaateen waxa way talaabo laga qaadayaa waxaan leeyahay hay'adaha dadka ganacsiga ee la yimaada mataqaanaa khabiirada waxaan leeyahay hal la qaato wixii waajibka ahaa ninkii sameyn waaya talaabo laga qaadayaa maxamed shiciir axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle.